ciidamada booliska maamulka galmudug ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Cadaado waxa ay ku soo qabteen mid ka mid ah rag lagu eedeynayo in uu kufsigi iyo dilkii Xamdi Maxamed Faarax lagu geystay magaalada Muqdisho uu ka dambeeyay shakhsigana ciidamadu ay soo qabteen ayaana waxa maanta lagu soo bandhigay saldhigga booliska magaalada Cadaado taliyaha saldhigga booliska magaalada Cadaado laba xidigle Cali Maxamed Xasan Cali Dheere ayaa sheegay in ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Ibraahim Cusmaan oo 24 jir ah kuna dhashay magaalada Muqdisho lagu tuhmayo inuu ku lug lahaa kiiskii marxuumada Xamdi Maxamed Faarax kana soo baxsaday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kadib waxa uu sheegay in xogtiisa ay soo gaartay ciidamada booliska galmudug gaar ahaan saldhigga booliska magaalada Cadaado isla markaana ay u suurta gashay in ay soo qabtaan kadib howlgallo ay ka sameeyeen gudaha magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud taliyaha ayaa waxa uu mahad celiyay ciidamada iyo shacabka galmudug oo uu sheegay in ay si wada jir ah uga shaqeeyeen sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa eedeysana Maxamed Ibraahim Cusmaan oo baxsad ahaa wuxuu ku saabsan yahay shirkeenan jaraa'id kiiskii dilka ahaa ee gabadhii laga tuuray hoteelka Muqdisho taariikhdu markay ahayd 11 bishii 9aad abaara 7 saac iyo bar kiiskaas markaan ka helay information iyo amaamiir taliskeena good aan u howlgalnay si dhab ah aan isku daynay in yaawd inaan wax ka ogaano waxa soo galay degmada iyo waxa ka baxaya iyo waxa ku dhex jira dhammaan howlgelinay ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa noo soo gashay 24 saac kadib inaan gacanta ku soo dhigno eedeysane Maxamed Ibraahim Cusmaan oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyay falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay Xamdi Maxamed Saalax Xamdi Maxamed Faarax Ilaahay mahad iska leh mar walba waxaan rabaa inaan mahad celiyo saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo xogtaas aad iyo aad informationka noo siinayay ama amirna nagu siiyay haddii heer guud taliyaha ugu sareeya booliska Soomaaliyeed taliyaha xigeenka taliyaha galmudug taliyaha xigeenka dhammaan saraakiisha booliska Soomaaliyeed waxaan dareemaynaa inay taagnaayeen waxaan wadaagaynaa xog joogta oo saacada waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed oo dhan inay taagan yihiin oo taagnaayeen waxaan rabnaa inaan cadeyno ninkaas inuu gacanta lagu hayo sharcigana mari doono ama amirta labaad ee saraakiishna siiyana ay yihiin in lagu soo celiyo sharciga oo aan diyaarad saarno caasimadana aan geyno Muqdisho ciidamada booliska dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay sheegay in 11 ruux ay u hayaan kiiskii kufsiga iyo dilka ahaa ee magaalada Muqdisho lagu geystay marxuumada Xamdi Maxamed Faarax isla markaana ay baaritaano ku hayaan dadkaasi Umar Axmed Ibraahim Somali News TV magaalada Cadaado